عنق على صوب حيده هربك وإنا كار هكذا عنق على صوب حيده جدا واو على صوب حي والله بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين إلا نبض أسوق إلى أسوق نبض قبل إلهك صوب حي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد سرب إذا الأصبح ونكسر وحرجنا إن عافمات قبطان دمانتين أنا جنسي ذا كلاته هذه هذا عافمات قباء صباح ونكسر ساك وصباح خير سن صباح بركة سن واعي ساكي إسلامتي أصوب ذي وحأوصل عنا إسبيتال وحاول قليل جلسة ويلكي علوش أكو ديرتا إني بناك صادقته وحكوا إن دشاكة وضاف سمالك حق قلدمي بركة ناسي سأوقتي صدح ويل إنه هاي ساعة wiilka koowaad oo lagu qalay kalabaad caadi u dhashay kan hadda inay isku khashaartaa ma fahanteen soo marka ana qalitaankan ana dhaho isku qal ayada inay caadi u dhashaartaa laakiin ana ka diido dhaaba caadi u dhal sababta waxa waaye hal lagu qal ana dhaaba caadi u dhalitaanka waa xanuun waa arka ma fahanteen soo by the way isbitaalka u sii soconaa ani ayada gaariga wata soo jeedin isbitaalka u sii soconaa isbitaalka waxyar noo jira insha Allah waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay sanadada ku kala keeno doono Ilaahay waxa uu fududeeyo dhalitaan qof dhalaya ma fududo waa dhib badan tahay isbitaalka hadda waxay noo tahay saacada Serbia 4 saac subaxnimo waxay dhalaysaa saacada markay tahay 2 oo duhurnimo 8 saac oo duhurnimo maanta ilaadkiis waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay u fududeeyo doono anigana waa la joogi doonaa waa ka warqabayaa agteeda fadhina agteeda ma fahanti waa daawanaysa wax u dhacayaan iyo wax oo dhan kor kala soconaa ma fahanti kormaan waa joogaa waa daawanaa ma fahanti waan idin soo duubaa insha Allah janaalka ayaanta dhan waa ka maqnaa subscribe ala saaro ayaanta waxa u maqnaan wax kale ma iska caadi saa dareemay xanuuniye iska imaaday gabadhiyo si sheegay iska cuslaatay wixii iga dawimaaday marka insha Allah waxaan rajaynayaa video badan inaan soo dhigi doono islaam isbitaalka waa kana waa imaaday building kastaa waa isbitaalka isbitaalka isbitaal private waay oo aan arko waliga ayada ka hor ma arkin isbitaalka ku dhalasho isbitaalka waay insha Allah idinka waxaan rajaynayaa inaan soo waa imaan hadda wishku aan soo dhignay waxaa ujeedaan qaybtaas qayb reception waxaad soo istaagay isbitaalka neesi maanta lagu qalaayo isbitaalka hortiisa taaganahay isbitaalka magaciisa waxaa la yiraahdaa Aval Hospital waa isbitaal aad iyo aad u wanaagsan quality-giisa ama tayadiisana aad u sareyso magaciisa waa kana Aval Hospital waa building weyn waaye kale gudaha galaya gudaha markaa galo waxa ogaanaynaa se wax u dhacayaan iyo wax oo dhan insha Allah waxaad soo galay meesha saalada oo qalitaanka ama lagu qali lahaa neesi banaanka aan lagu rabay laakiin waa la gali doonaa waqti daqiiqad yar kadib kabaa noo la xiraysa u jeedanbo macnaha kabaha oo safety-ga waaye meeshan kadibna saalada la geenaa qalitaankeedana wuxuu bilaabanaa saacad markay tahay 2 caaw 2 duhurnimo ama 8 saac duhurnimo 8 saac waxa ka dhiman waxyaana ka dhiman ma fahanteen marka insha Allah waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay u fududeeyo waana ku guuleysan doonaa hadduu Rabbi qadaro marka waa kaas wixii kale oo update soo kordhaan ana kulay idil soo socodsiinaya hadda ani ayada intaan ugu kala reeyo ma fahanteen aan inta lagu reeyo suuqa leedahay laakiin waa arkeenaa ma fahanteen waxa ka soo baxaa waa suuqa Serbianka waa dad waalanba waxay rabeen marka hore inay celiyaan xanuuna qabtaa sanka wax kaaga jiro ee sheekay ay keenaan ma fahanteen
waxaas ma jiraan hadee meesha private waaye islaantiina liida dhacgale final xooga kusoo galay meesha waa soo arkanaysi qalitaanka 2 saac ka dhiman waqtiga la khalay waa soo gali kartaa ay dheemo imaan kartaa marka arkayna insha Allah waqtiga qalinka inoo balan waa fiirsanaa sida wax loo khalay maanta insha Allah markaas هذا بلانكاس تاكفيه سو حوغير سو جيرينا هدودي سو نقنا فانتين وهذا السلام marka inuu hadhoodi gays dhamaantiin Soomaaliya soo daceeya waxa la joogaa daqiiqadii ugu dambeeyay ee dumashadiin waxa way operation ka ku gal lahayd waxa la keenay dharka aan gishanayo oo ah maadaama aan ayada qolka la galaayo meesha lagu khalaay maadaama aan la galaayo waxa waajib la iga dhigay inaan dhar gishto soo marka waan labisanayaa dharka qalinka gasho doonaa maadaama aan garabkeeda aad taaganahay ama xaaladeeda aan la soconahay waxa dhacay iyo waxa jira intaba soo marka ina dharkan gashto waa dharkan la ii keenay waxaan dhan waa bedel doonaa hadda waxaan aawata dhan waa bedela kabaasa gashanay dharkan isku eg soo marka dharka gashto aan isku soo noqonayna insha Allah taas harta kaamirada waa baqbuqaya wallahi aad u naxnaxaya laakiin insha Allah dharkan gashanay waa idinku soo noqonay waa sugi lahayd cunugeyga yar arki la waa sugi lahayd wallahi hi guys waa soo labistay dharkii la isoo galiyay waa kana saana noqday ma fahanteen soo marka waxa hadda qolka qalinka aada meesha lagu qalaayo sababta waxay tahay waxa la dhahay dharka inay xirnaato waaye maadaama aan meesha la galaayo ma fahanteen marka insha Allah guys ilaahay idinkiisa waxa rajeynaa inuu ilaahay u fududeeyo qalitaan ma fududo sidoo kale dhalitaankana sidiisaba ma fududo hooyo walba waxa ilaahay uga baryaa inuu ilaahay سنبدا كوكلا كانوا إلهي هوايها أفضل هواي علاس أنا يرين أي نجاح يسا ورك إن شاء الله نيسين وحول جينا نقول إن شاء الله إلهي إنكس إلهي سنبدا كوكلا كانوا ربي أساق غفور رحيم إلهي وربي وسنبدا كوكلا كان إن شاء الله وحين نبلا نقولك قلينك مركا قلنا وقت هذا نو قابين هاي ممنوع ما أنتر إن وقت اسكدلو وإذا جعل دمانتين دعاء وحقين وإذا السلام إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحد وأذك inaan la joogo ama aan dawaadi u adag tahay laakiin wala ma fududo hooyo ya aad u adag tahay laakiin insha Allah waxa rajeynaa ila idinkiisa u fududaan doonto rabbiha u fududeeyo ila waxa ka barinaa u fududeeyo إلهي وحاجة بريا إنه إلهي أفضل وأدكتها ويفضلها إن أور هاي الله لكن بفضل وحي هاي مريسو والله مفروض والله ما أنت كلي أيام درهم حنوك إلا هذا هاي بسم الله الرحمن الرحيم جير كذا والله جاح عمر كاركت بواسكم ناحية كبر هذاك تاعي نموني نمتابس دعوة كره لكن من دعوة كره بحاول أركتن وهسا والله إله هو جندك إله هو يودن جندك إله أيضا هكلا كأنه أيضا وثقت الماذا أكسو عليه مفروض والله نزف ما أنت أركي maanta arkay dhaqaatiirta qalaysa meeshaas ay kula jiraan ana waa la ii diiday inaa gudaha ugula jiro sababta xitaa anuu oynaya markay arkeen banaanka ay soo bixiyeen waxay dhaheen banaanka u bax isla markaa kuma jiri karo gudaha waxaa ku qasbanaa inaa banaanka taagnaado aan meeshaan ka duubo xal kale ma laha ma fahanta option aana kan ahayn oo ii furan habeeraatee ma lahan laakiin ilaa idinkiis waxaan rajeynaa inuu ilaahay nabad ku kala keeno ilaahay rabbi u fududeey ilaahay u fududeey miskiinta ilaahay rabbi u fududeey
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. إله ربي أفوذه، إله ربي أفوذه، إله ربي أفوذه، إله ربي أفوذه، إله أفوذه. waa idinka raali gelinaa emotionalka yaraan noqday sababta waxay tahay waa daawan waaye ma fahanta nees oo jirkeeda la jaaxaa markaa arkay waa iscelin waaye soo marka ilaahay ha u fududeeya leeyahay wax kala dhihi karo malahan wax kala u qaban karno malaha sidoo kale wax kala u qaban karo oo ilaah abuurta malaha ilaah u fududeeya leeyahay إله وفضل إله كلا كانوا إله كلا كانوا وحيرا ودمن آخر بودنا علوشي وكلا بحيو. بسم الله الرحمن الرحيم. وحيرا ودمن عندنا بناك صبيحين بس عدمن والله مفضل هو مفضل والله إني سوى يفضلين ما أنت أركي هو إني سنفضلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إله ربي هو جنة الجاي إله ربي هو جنة الجاي إله إني سنا أفضل وحكي عليك ما أنت ملهن على شيء ذي وكلا فرنا على شيء ذي وكلا فرن إنا لله وإنا إليه راجعون قف كاساسين والله أنا ما بس دهاي qof calooshiisa la kala furo weligaa maslahda oo sii noolaana caloosheeda kala furna arkoya billahi min ash-shaytaan ar-rajiim. bismillahir rahmaanir rahiim. aqsa cunuga madaxiisa u jeedaa bismillahir rahmaanir rahiim. cunuga la soo bixiyay عنك صبحنا هذا أركيا عنك على صبحنا يا أركيا والله بناك مدحس بناك على كان كارن. بسم الله الرحمن بينسوق قبنا يا كارن. إنا لله وإنا إليه راجعون. بينسوق قبنا يا كارن. إله ربي وكلفه إله وفوذه إله ربي أفوذه إله ربي أفوذه وحده إله ربي أفوذه أذوين وحده إله ربي أفوذه أذوين واحد إله أفوذه. عندي قال صبح ده خرابك أين كار هكذا عندي قال صبح موجودين سبحي والله. بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. إلا نبض أسوق إلى أسوق نبض قبل إلهك سبحي. Okay? Wow.